madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud Faroole oo xariga ka jaray madaxtooyo cusub oo dhawaan maamulka dhismeedu ka waday duleedka waqooyi ee magaalada Garowe. munaasabadan xariga looga jaray madaxtooyada cusub ayaa waxaa goobjoog ahaa qaar ka tirsan golayaasha xukuumadda Puntland, hay'ado caalami ah iyo marti sharaf kale. gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda xilligan ay hirgelisay dhismayaal aad u ballaaran oo dowladda maamusho. dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladda tanqiimaha qaayaha weyn ee galabta halkaan isugu yimid waxaan ku salaamaynaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. alxamdulillaah ilaah baa mahad leh, ilaah baan u mahad celinaynaa meeshaan quruxda iyo qiimaha badan. hogaankii Puntland, saldhigga hogaanka ee reer Puntland oo galabta xariga laga jaray, guriga qiimaha ballaaran leh ma faahfaahin karo. xilli gaaban baan ku jiraa, waxaan rabaa insha Allah inaan ku soo dhaweeyo madaxweynaha si uu kelmadii ku habboonayd furitaanka halkan uga yiraahdo. ku soo dhawow mudan madaxweyne. madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud Faroole oo munaasabadaasi xariga looga jaray madaxtooyada cusub khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka soo jeeday isla markaana ka hadlaysa dhismayaasha cusub ee dowladda wado iyo qorshayaasha horumarinta ee dowladda Puntland. bishan Abriil waxaan maleynayaa sidii hore ay Puntland u tahay kal hore waxaynu furnay xaruntii baarlamaanka Abriil oo aynu ku shiray oo dastuurkii Puntland lagu ansixiyay. maantana waxaynu furnay xaruntii dhexe ee dowladda Puntland ee magaalada madaxda Garowe ku taala baynu maanta furnay. xarumahan aynu furayno ama hore aynu furnay waxay daliil u tahay in kaabayaasha caamka oo dalku u baahan yahay inay tarmayaan oo badanayaan waliba khusuusan kuwooda asaasiga intii hadda xukuumaddan ama maamulkan uu jiray oo 4 sano iyo 3 bilood ahaa waxaa la sameeyey oo la dhisay ama la dayactiray dhismayaal aad u tiro badan. kuwa qabyo ahaa oo la dhammaystiray oo wax badan lagu kordhiyey iyo kuwa cusubba. galabta halkan kuma soo koobi karo. waxaanse ka tilmaami doonaa marka u horeeya xarumihii qabyada ahaa oo ahayd terminaalkii magaalada Boosaaso oo ay dhammaystirtay dowladdan. jeelkii weynaa oo Qardho ku yiilay oo isagana la dhammaystiray oo dib loogu noqday oo isagana la sameeyey. xaruntii ama golihii wakiilada xaruntoodii baarlamaankii Puntland oo la dhisay. waxaa isku mashruuc ah haddii aan xoogaa dib ugu noqdo baarlamaanka iyo xaruntan dhexe iyo raadiyaha iyo telefishinka iyo aeroboortka terminaalkiisa Garowe iyo guriga martida ama guriga madaxtooyada Qardho laga dhisay iyo guryo kale oo haddii Ilaahay idmo aan ka dhistoono xarumaha kale oo gaalkacyo ugu horeyso. Mahad Cabdi Cali, Somsa TV, Garowe.